كسكو عركو علي واكاس هذا القعداد ديس ورنيو waxaan hadda fiir wuxuu ku hadlay bam ninka xabada inta uga dhacday inta ka bax ninka asaa qori ugu qabtay xabad ma ku soo rido macna maya qori furan ugu qabtay wuxuu jira 44 sano jira 17 sano ayuu jiray liiban markuu dhalinayo marxuumku uu dhali karaa waxaa marka soo kordhay kaftankan iyo dhool cadeynta iyo qusulka taasoo keentay in uu marxuumka ka xanaaqo marka ay timaado fawdo iyo kaftan dhaafay xadkiisa oo askarta dhexdooda ah lana joogo xiriyaha iyo difaacyada ciidamada waxaa jirta luuqad aan ahayn xabad iyo gacan ka hadal loogana baaqsan karo faldambiyeed waana ribood bixin ama ashtako balse liibaan nuur axmed ahna sargaal xigeen ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa saaxiibkiisii ciidamada marxuum Maxamed Ibraahim Dhuubow oo ay wada joogeen jiidda hore u dilay kaliya inuu ka carooday hadallo kaftan iyo fordo isugu jiray oo marxuumka uu ku tuuray askari kale taasi oo eedeysanaha u arkay inay ahayd mid lagu liidayo xaafadda uu dhalasho ahaan ka soo jeedo isagoo wejiga uga dhuftay hal baalooto isla goobtaas ayuuna ku geeriyooday marxuumka waana deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellaha Dhexe halka uu falku ka dhacay 18 bishii 8 ee sanadkan ninka la murmeen asxaab badan aan la joogto marqaati ah anigu waxa hadalay kuma darsan saaxiibna waa ahayn ninka dagaal nooma dhaxayn wax intaas haba la ekaatay aniga asiga noo dhaxay ma jirin ninkii ay murmeen iyo asiga ayaa macnaha ninkii ay murmeena gadaal ka soo hadlay anagoo wada socono markaas wuxuu yiri warkii hadda aad ku soo aad idhaysay war ku soo celi yaa la dhaha waxa la dhaha marxuumka muxuu dhahay marka hore wallahi ma sheegi karo waa murm waa la dooday marka ninka asaa qori ugu qabtay anna way iga fakatay xabad ma ku soo rido macna maya qori furan ugu qabtay ninkaas walaalkay u hayani wax cadaawada nooma dhaxayn wax uqdada nooma dhaxayn qadartu waa qoranta askartii ku sugneed goobta lagu dilay marxuumka ayaa fadhigan maxkamadda ugu sharaxay sida falku u dhacay iyo arinta la isku qabtay see wax u dhacay 7 askariya ku socodnay aniga iyo liibaan nuurow iyo nin liira ambiyo sokora qaba Allah u naxariisto marxuumka maxamed aadan dhuuw ma liiraarto iyo ilaahay ku mismid deeqow iyo kuusow 7 niman ku soconay ambiyo iyo marxuumka ay kaftamayeen doodana waxay u dhaxaysaa marxuumka iyo ambiyo liibaan nuurow waan la socday ninka hadana baa ugu weynaa oo ahaa liibaan waa soo boodiyay wuxuu yiraahday ilaahay ku mismid diiday warniyo waxaan hadda fiir wuxuu ku hadlay war ma adiga baalka ii sheeg qof bini aadan dhiigiisa yasi kara wuxuu leeyahay marxuumku leeyahay macnaha baashi waa sii badatay heerebel ahaan aniyo sukara qaba xoogaha baalkii 2 talaaba ka hormarnay askarta shanti kalena waa naga dambeeyeen oo liibaan ku jiro marka wax yar soconay doodina wali baalkii tuulada iyo tariska inta u dhaxaysan aan dhex marayno Xaaji Cali waxa naga daba imada liibaan ambiyo waa horta hadla marka hore ambiyo wuxuu yiraahday kasiko oo arku cili waa kaas hadalka daad dhiis ilaa hadalka lama joojin ma ogtaa wali waa la wadaa anigana macnaa waxa socod boobsiyeynay in macnaa hadalkan oo naga dhamaado inta ambiyoogu ku soo boojeesnaa liibaan garabkeena soo istaagay arku cili bam ninka xabada inta uga dhacday inta ka bax marka ilaahay ku misma diiday labadaas niman kaftan ku dhaxay liibaanna gacantii wax geysato laha marxuumkana Allah u naxariisto daaswal weydiinaysan laba nin oo wada kaftamayo hadalkoodii ka dhaxay labada nin oo kaftamaysa dhaxdoodii soo galay qof asaga wax ku darsatay hadal ku darsatay malahan ma baashi waa qaraaraatay mar hadda soo galay hadalkina oo socday waa la isla sii wada anagana waa ka socod boobsiinay markuu soo dhex galay asaga qof miya asaga la hadlay hadalkiisa magaciisa ma la soo hadal qaaday maya marka ambiyo asagoo danaan inuu soo dhex galay marka ma arkeenin markii marxuumka liibaan oo qori ku qabanay marxuumka liibaan xabadii oo dhacday iyo liibaan oo qoriga ka sii qaadanayo iyo inuu liibaan dilaan taas ay ogaanay xabadu markuu liibaan riday oo ku dhufan adam arkaysa waaba isla simanaha ninkiyan fiirshay aniga ambiyoogan fiiriyo laakiin aniga asiga saan isku siman ma arkaysan ma aragti ahaan arkin aragti asigoo xabada ku rida ku dhufaay ma asoo qoriga ka kor qaadaya ark oo kor qaada bas arag laakiin ragga kale inay saxbad ridin ana ogaayo gadaana ayaga dhan gadaal iga jireen waa kala qaban inta dhaxdhaxaday kan waa dhaxdhaxaadine waa dhaxgalno waxa soo xal isku dagaalma xarfaane macnaa askar qarnaana meesha naga wadaadaan عبار مكا هذه أفرت لك عمل آخر ناسعنا متكلا سوى بودا دني معني واحد عدم أساس ليس ها وسوي علي ولا مكا إرجعنا إرجع ما وسوي علنا إرجع هذا وسوي علي محي بدلك كرتوا مكا وحلا بدلها ولا كتسا وسوي علي نيجا مركا أساس وسوي جسنا وسوي علنا ولا إنه قرص وركسنا عمل سان وسوي جست نيجا أنا مركا دم بقى أسوي قرص كتاع مكساس وكباح مرحوم كي أيام مركور كان دنتي متكلا عمر ماد
markay mureen laga kala dhexdhexaadina labadooda caadi waa cabaara socon cabaar markaa soconay haddana macnii asili haddana wuxuu dhahay hadalka ku soo celi camal hadalka hadda aa dhahda ku soo celi camal ninka markuu asina waa xoogaa qadara iska soo jirtay waa wuxuu dhahay marka waa ku soo celinaa maxaa laga bedeli karaa hadda ku soo celiya waxa iga bedelaa ku soo celiya waxa laga bedelaa waa arkay marka saanta u soo jeesanaa ma qor inay la soo jeesanaa ma umleynaa ma saanta u soo jeesanaa qori garabka ugu jiray kabacdi ninkaana marka asina qori caadi u bax marka waa hal baalooto ku dhuftay ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme cabdibaasid madaale ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ah qisaasta marxuumka liibaan nuur axmed xuseen wuxuu si kas ah u dilay marxuum ex isbitoore maxamed ibraahim dhuubow oo ahaa saaxiibkiis ay ceesh wadaagga ahaayeen furinta ka wada shaqaynayeen xabadda difaaca u wada taagnaayeen mudana guddoomiye garsoorayaal doodii maxkamaddu dhageysatay ee ka dhacday maxdarkan eedeysanaha wuxuu isku difaacayaa oo uu leeyahay xabaddaas way iga fakatay iyo waa isdifaacayey iyo marxuumka igu soo taagay qori iyadoon sheekadaasi aanay caddeen beenna ay tahay maxkamadda horteedana aanu ka caddeennay waxyaabaha uu ka been sheegay annagoo maxkamadda hor keennay 2 marag oo goobjoogayaal ahaayeen kitaab jaamaca lagu dhaariyey sheegeen in liibaan uu dhex galay marxuumka iyo askari kale oo sheekaysanay sheekadii ay labada askari ku sheekaysanayeen intuu ka xumaaday uu raggii sheeko ku darsaday ayuu marxuumka xabad afka uga dhuftay mudana guddoomiye garsoorayaal marxuumka uu xabadda afka uga dhuftay wuxuu ahaa agoon hadda dhow aqal galay muddo kooban guri lahaa oo mas'uul ka ahay walaalo aad u tiro badan waxaa ku jira hooyadiisa ku jirta oo da' 27 sano jiray mustaqbal buu lahaa eedeysanaha maxkamadda hor taagan oo maanta ku andacoonayo ninkaasaa idilay oo meeshaasaan ugu caddeynay inuu si kibir ah oo bareera u dilay mudana guddoomiye garsoorayaal wuxuu jiraa 44 sano jira 17 sano ayuu jiray liibaan markuu dhalinayo marxuumku uu dhali karaa mudana guddoomiye garsoorayaal liibaan wuxuu ku kacay fal arxan dara ah oo bini'aadanimada ka baxsan xataa dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka wanaagsan naxariista badan ma qabto qaabka u dhaqmaayo mudana guddoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanaya cadeymaha aan cadeynay oo sida qoraxdii oo kale aan u cadeyn inuu dilkaas si kasta u geystay marxuumkaas aan waxba ka galabsan wiilka yar ee mustaqbalka lahaa inuu kibir ku dilay mudana guddoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanaya ciqaabta ka dhalanaysa aayadda quraanka kariimka iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo ah qofkii qof dila xukunkiisu waa dil toogasho ah maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed ibraahim dhuubow abuukaata cumar dheere qareenka eedeysanaha ayaa dilkan ku sifeeyey mid kama ah muwakilkiisa ayuuna u codsaday in maxkamaddu ay ku xukunto bixinta magta marxuumka liibaan nuurow iyo marxuumka dhinta Allah u naxariistee marka laga soo tagay inay iskala tirsanayeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad qaraabo hoose ah famil ah waxay ahaayeen dad asxaab ah oo si qaas ah u wadaaga arimahooda waxay ahaayeen dad isku sir qarsado waxay ahaayeen dad ciidanka kale isla jooga yani kaga dhow marka laga hadlayo dhinaca siraha wax isku sheega iyo wax qarsiga waxyaabaha kale oo laga fiiriyay kiiska waxaa ka mid ah inuu jiray colaad raagtay oo labadooda ka dhaxaysay wiligood labadooda murunkaas yar ee kaftanka ahaa ee maalinkaas dhacay ka hor ma jirin murun kale isku qabsadeen ama xataa ma jirin khilaaf kale oo ka dhaxeeyay labadooda gaarsiisan inay xataa kala aamusaan ama xiriirkooda oo xumaado dad waxay ahaayeen hal aag furankaga wada jira ujeedka meesha u joogeen wuxuu ahaa difaaca qaranka iyo inay iska ilaaliyaan cadowga weerarka ku ah ujeedkiisa qasadkiisa hadafkiisa ma ahayn wax inuu dil iska daayay inuu xataa wax yar gaarsiiyo taas marka laga soo tago marka laga hadlayo taariikhda eedeysanaha liibaan on record waayo wiligiis lama xirin wiligiis laguma soo eedeynin waxyaabo dembi ah haba ugu yaraatee xataa inuu qof dharbaaxay ama qof feeray inuu qof dhaawac ama inuu qof dilo waa mid culus waxaa marka soo kordhay kaftankan iyo dhoola caddeynta iyo qusulka taasoo keentay inuu marxuumka ka xanaaqo yiraahdo
mar dambe ku soo celi qorigana ammaankiisa ama afkiisa oo ku soo jeediyay liibaan liibaan asna qasadkiisa wuxuu ahaa sida uu ii sheegay inuu asigana qoriga afka asna isaga jeediyo si uu isaga ka jamo oo waxa la yiraahdaa asna ku dhaadii anba qoriga wataahe qoriga igu soo aadinin tiya marka waxay keentay inay xabad ka fakato fakashada xabadu haddii xataa xabadu ay xaalad xabad ku talagal ah xabadu markay tahay xabad ku talagal ah qofka waxaa jirto meelo bareer ah oo loogu talagalay oo qofka ka dhiman karo ka adeegsado wuxuu ku dhufan lahaa madaxa hadda ku talagal tahay wuxuu ku dhufan karay wadnaha haddii xataa uu dhaawacay wuxuu ku dhufan karay lugta waxay ahayd xabad waxa la jiri kama ah oo ka baxsatay waxayna kaga dhacday afka marxuumka Allah u naxariisto wuu naga hooseeyaa dhibka gaaray ama dhimashadu uu dhintay madda firay ama qaabku ku dhintay taasoo waxa la jiray yani ka dhigaysa keeska inuu yahay kama laakiin xafiiska xeelanta uu ka dhigay kaskiisuna uusan u keenin caddeyn si waafaqsan 110 iyo si waafaqsan 113 maadaama xabadu marka ay ka fakatay muukilkeyga maadaama ay ahaayeen asxaab maadaama ay ahaayeen hal ciidan hal hurin hal koox isaga tirsanaayeen maadaama ay wada joogeen furin ammaankan uu wada furnaa maadaama ujeedkooda dhammaantood uu ahaa in iska ilaaliyaan cadowga ay ahayd in aysan ahayn in iyaga isku noqdaan xabaduna ay ka fakatay famil hoosena ay yihiin maxkamadda waxaan ka codsanayaa in muwakilkeyga ay ku xukunto magta marxuumka dhintay maxamed ibraahim dhuubow Allah u naxariisto maxkamaddan waxaan ka codsanayaa in ay ka khafiifiso ciqaabta ku xusan 445 inay ka khafiifiso kuna xukunto magta marxuumka geeriyooday maxkamadda sharaftana waa maasantahay maxkamadda maxaa kaaga baxay maxkamadda waxaa iiga baxay war fiican haye khayrka Allahna waafajiyo aamin maxkamadda waxaan ka codsanayaa in ay bal sidii ugu fudud ay sameeyso gabagabada fadhigan ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka Muqdisho.